musharaxa xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Cirro waxa hadalkiisa ku badnaa mar walba daliil uga dhigayay waxa ila tahay iyo waxaan isleeyahay halka Muuse Biixi Cabdina hadal xaqiiqa oo realistiga umada uu soo bandhigayay oo qorshaha rasmiga ah ee bulshada ku hagi doono ee la hubo umada uu soo bandhigayay Soomaaliya waxay u baahan tahay qorshe aan ku salaysnayn madaxweynaha iyo khiyaali iyo waxay la tahay aan u baahnayn balse waxay u baahan tahay qorshe runa oo xaqiiqa oo dalka lagu hagayo mudane Muuse Biixi Cabdi markuu ka hadlayo wax soo saarka dalka iyo sixir bararka waxa uu sheegay sifaha kaliya ee sixir barar laga badbaadi karin kow ka tahay in dalku wax soo saar yeesho oo dadku waxa ay soo dhoofsanayaan oo yaraado waxa ay mid u dhoofinayaan ay farabato markaas isku filaansho la gaaraya sixir bararkana lagu guuleysanaya nolosha dadka bilaadankiina ay kor u kacaysa dakhliga guud ee GDP-ga dalkuna uu kordhaya Muuse Biixi Cabdi ku awood weynaa waxa kamida inuu fahamsanaa in wax soo saarku uu yahay muhiimadda ugu horeysa ee sixir bararka lagu guuleysan karo horumar lagu gaari karo doodii habeenkii dhow waxa iga baxay inay ku kala salaysnayd xoogaanimada musharaxiinta meelaha muhiimka ah ee Muuse kaga muhiimsanaa labada musharax ee kala aadka muhiimka waxa kamid ahaa arrimaha garsoorka inta badan garsoorkeena marka aad u dhaba gasho halka qalooc ka soo bilaabma waxay tahay booliska iyo baarista waxaana Muuse isagoo xoogaanimo muujinaya ka bilaabay tayeynta garsoorka marka laga hadlayo inay beys u tahay barnaamij siyaasadeedka iyo aragtida musharaxada in la tayeeyo maxay booliska iyo baarista aqoontoodana kor loo dhiso si ay u gaadho inay dacwad dhisan oo faham badan ka muuqdo oo tayeysan garsoorka iyo maxkamadaha sidoo kale qodobka muhiimka oo ahaa garsoorka ee Muuse toos u taabtay waxa kamid ahaa in ay garsoorayaashu aanay noqon qaar iyagoo baqayo xukumo ay noqdaan qaar kalsooni iyo amni iyo dhaqaalaba isku filan oo kalsooni haysta oo dhisan si ay baaristu markaa u noqoto mid tayeysan laba qodob baan doonayna inaan ka idhaahdo doodii murashaxiinta habeenkii dhawada dhex martay taasoo qof waliba maxaa wax rajaynaya ama perception oo murashaxiinta ka qabay marka arrimaha gudaha kala markay noqoto saddex qodob ee maxaa murashaxiintu maxaa dooda ku salaysnayd xagga arrimaha gudaha arrimaha dibadda iyo arrimaha dhaqaalaha arrimaha gudaha Muuse maxaa waa la rajaynaya inuu qodobka kaga khibrad badan yahay labada maxaa murashax oo kale waxyaalaha maxaa imika uu muujiyo kale arrimaha gudaha la xiriira waxa kamid ah maxaa qabyaaladda sida lagu dagaalamayo qabyaaladda waxa lagu dagaalamayo qofka oo hela maxaa qaran damaanad qaada oo kaga maarmo maxaa qabiilka hoosta ka galayay iyo sida amniga lagu sugayo amniga maxaa qofka amnigiisa waxa la sugayo amba amniga uu sugmaya qofku markuu cadaalad helo loo cadaalad sameeyo aan xuquuqdiisa lagu xadgudbin qodobka ugu xisaabtana wuxuu ahaa qodobka shaqo abuurka oo uu si fiican oo faahfaahsan u qeexay musharaxa xisbiga Muuse Biixi Cabdi oo uu sheegay in dadka reemiga iyo dadka magaalada mid walba shaqada ku haboon ee uu qaban karo maaragtay la siin doono oo lagu jihayn doono dadka dhalinyarada inta badan Cabdiraxmaan Cirro doodiisu waxay bulshada Soomaaliland eegaysay oo ay u shaqeysay in uu qodobka mowqifka arrimaha Soomaaliya oo iska baraxo oo maaragtay wax ka yidhaaho oo laba jeer labada musharax mid walba oo maaragtay kelmad uu ka yiri runtii wax uu iska difaacay Cirro qodobkaas ma jirin runtii doodii habeenkii dhawata hotel Mansoor lagu qabto waxay ahayd mid muujisay in Muuse Biixi Cabdi yahay hogaamiyaha ugu habboon ee xilligan hanan kara hogaaminta qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland halka uu muuqday gudoomiye Cirro hogaamiye aan hanan karin qulubta shacabka oo aan xilligan dalka hogaamintiisa lagu aamini karin Faysal Ali Waraabe runtii isaga dirdiisu waa mid aan waaqac yani ka fog ay ahayd oo isku horiyo dareemaysa oo maaragtay waxyaabaha aan ka xuskaro waxa kamid ah wuxuu yiri qof walba waxaan siin doonaa laptop inta horta laptop iyo waxa ka horeysa qof walba inuu cunto helo kolka waxaan arkay dood laabariga oo aan ka baxsan waaqaca iyo nolosha bulshada marka halkii aan ku rajaynayno inuu Cirro qodobo badan arrimaha dibadda ku soo bandhigo Muuse kaga fiicnaaday